بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحن هالكان كسلام هيا ميركسي جوجان أمد الصوماليات. مقعي وادي توريس بشارة الشيخ علي وحرم بالمانتي إن أنا وحير لو ذاقو أمد الصوماليات. runtii waxaan la wadaagayaa aniga baaba iska yaabayba waxaan la yaabay markaan isfiiriyay waxaan soo xasuustay ummadda ilaahay markuu uumo waxay maraan marxalado kala duwan bay maraan. marxaladahaas maxay yihiin? ayagoo yaryar ay dhashaan, markay dhashaan ayagoo koox kaloo ka rooroon, ayagoo sii socdo xoogaa soo qaangaara, ayagoo soo weynaaday, ayagoo wax dhalay, ayagoon waxba dhalin. intaas markay marayso haddana waxa ugu darsoonta ayagoo nimco helay, ayagoo dhibaato la kulmay, nuuc kasta la kulmay, ama qax ha ahaato ama abaar ha ahaato la kulmay, oo mid walba intaas ayagoo haddana sii maray, oo haddii alkuu reehay ayagoo gabow noqday, ayagoo weli dhalinyaro soo noqday, nuuc kastaba waxyaalahaas kala duwan oo bulshada soo marta marka ay nool yihiin oo ilaahay ifka keeno. maxaa anaga gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ama maxaa laga baran karaa marka haddii aad adoo yar dhalatay, adoo roon haddana is aragtay, adoo haddii alkuu reehay gabarho inanay ama wiila is aragtay, adoo dhaldhalay is aragto ilmo dhashay, adoo waayeel is aragtay, maxaa kuu dhow marka? maxaa laga baran karaa? adigoo abaar soo aragtay, adigoo gaajo soo aragtay, adigoo qax soo aragtay, adigoo dhereg soo aragtay, maxaan ka baran karnaa? waxaan isleeyahay waxaan ka baran karnaa horta dadkana isku mid maahan oo ilaahay baa marka hore dad qaar kala waafajiyo iimaan u kala yeelo, qof walba sibaa ilaahay u uumay. laakiin inaan wax isku sheegnaa la rabaa oo wax isfahansiino ama wax isxasuusano. dad baa ilaahay kitaabo badan qoray, dad baa cilmi badan yeeshay, dad baa maaragtay cilmi naafaca ummadii gaarsiiyey, dad baa dad waxbaray, dad baa xoolo badan dad siiyey, dad baa ayaguna saas oo kaleeto. marka waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaan ka barano, inaan laba meelooda u kala qaadaa. marka waxaan rabnaa inaan ka barano kow, haddii dhib nagu dhaco sidee u xallin karnaa, yaase u noqonaynaa? haddii nimco helno sidee u xallin karnaa, yaase u noqonaynaa? marka waxaan rabaa haddii dhib nagu dhaco inaan u noqono ilaahay, xalkana ilaahay u dayno, dad lana nimaano waxa ilaahayna siiyey. ilaahay ilaa adduunyuu na siiyey, xooluu dhaqanna yiri, dowladnimuu na siiyey, dowladbu uuna siiyey. marka inaan anagii wax kala xallino oo xalkiina ilaahay ugu noqono, anagiina wax kala xalinaan rabaa. haddii dhibaato timaado, haddii nimco timaadana inaan ilaahay ugu shukrino oo ku sii dadaalno, oo haddii alkuu reehay si aan dhibaatada uga baxno ilaahay maaragtay aan toobad weydiisano, oo wixii na faray aan la nimaano, digrigii iyo khayrkii la nimaano, oo wixii maaragtay dadkii dhib samaynayo haddii alkuu reehay aan wax ka reebno, aan iska reebno, oo dhageysano dadka khayrka farahaya. waxyaalo badan oo xal inaan wax xalinaan laga rabaa. meesha u noqonayna horta waa ilaahay inaan u noqono, xal badan aan sameynaa la rabaa. waxaan kaloo rabaa inaan ogaano waxaan wax iska daba yar inay yihiin, ayaanay soconayaan, gas waa dhammaanaynaa. marka maxaan marka la tegi doonaa ilaahay? maxaan kula noqon doonaa? adii laftii in la isweydiiyo waaye. haddaad ilaahay inaad la noqotid waxa kaa horeeya naar iyo janno waaye, janno iyo naar waaye. marka waxaa jannada la tegi lahayd inaad samaysatid, wixii naarta aad la tegi lahaydna haddaad samaysatid waa inaad ogaataa waxa aad meesha u socotaa naar iyo janno tahay. micnaha waa inaan wax ogaan karnaa, waa inaan wax ka baran karnaa wax kastaba. adduunka haddaa iska joogtid oo iska socotid oo iska cuntid oo iska cabtid, waxna aadan ka baran, dhibaato waaye. marka ummadda waxaan rabaa inaan intaas yartaa la wadaago oo iranaano war adduunka waxaa naloo keenay inaan wax ka barano, inaan khayr ka barano, ama meeshaan u soconno xumaanta aan ka barano. sababta qur-aanka ilaahay noogu sheegay, qur-aankiisa alla noogu sheegay inaan meesha wixii khayrana u jeedi karno, wixii xumaana u jeedi karno. balse annaga ilaahay wuxuu maaragtay qofku cadaab u qorana ilaahay cadaab u qora, qofku janno u qorana janno u qoray. balse waxaa jira dad aan intaba la socono, iska hawtalhamagaho u maleeya inay saa ku fiican yihiin. marka waxaan ana usoo dhaadhacaya Soomaalida, war bal wax badan intaan fiirino, waxa naga qaldan aan fiirino, aqligana aan isku geysano. haddii ay dowlad tahay aan saxano,
haddii nolol kale aan saxanno maanta waxaa arkaysaa markaad facebookyada iyo meelaha aad fiirisid meediyada dad qabiil leh ku hadlahay qabiil isku caynhay 24 saac qof dhintay caynhay bal wax kale inta ka tageen qof dhintay ay caynhayaan intii qofkaad loo raaxayn lahaa ilaahay u naxariista la dhihi lahaa qof dhintaa la iska caynhaya waxaa arkaysaa oo kaleeto dad waaweyn oo waxaa arkaysaa waxa ilaahay ugu talagelay ama ilaahay raalli ka ah iska sameynaya ama dad yar yar oo sidoo kale ah marka bal aan wax barano nimcada ilaahay na siiye aan wax ka barano aan dib inta iskugu noqon iraahno nimcada ilaahay na siiye maxaan ka baran karnaa dhibaatada ilaaha noo keenay maxaan ka baran karnaa waa inaan dhibaatada wax ka baranaa oo wixii xal waxaan isaan uga bixinaan xalkeeda aan raadinaa waa inaan haddii ilaahay nimcana siiyana wax ka baranaa oo sidaan wax ugu shukrin lahayna aan xalkeeda raadinaa marka ujeedada maanta aniga aan leeyahay waa inaan meel kasto marxalad kasto oo aan marayno yaa wanaag iyo xumaanba waa inaan wax ka baranaa maahan inaan iskaga dhex jirno iskaga dhex fadhin maaha ujeedada meesha aan leeyahay dadka xasuusinaya war aan wax barano oo wax ka barano halka aan marayno iyo meesha aan u soconno waa inaan kala ogaanaa anigu wax hadda shakhsi gaar ah kama hadla meel gaar ah kama hadla laakiin waa inaan kala ogaanaa aan wax barano aan ka barano xumaanta iyo dhibaa iyo khayrkaba aan wax ka barano yaa allahana na waafajiyo anigaan laftigayga allah i waafajiyo aad baan idin salaamahayaa dhammaan Soomaaliyey shartiga khayrka aan wax ka barano ilaahayna aan u noqono waxna aan ku xalino meesha markaan wax barano oo ogaano meeshaan ku dhex jirnaan wax xalin karnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi